shirkadda Haas Petroleum oo kamid ah shirkadaha ugu waaweyn ee Somaliland shidaalka keena iyo guud ahaan Geeska Afrika ayaa iska fogeysay inay ku leedahay shidaal wasakhaysan oo muddooyinkii ugu dambeeyay la soo gelinayay Somaliland shidaalkaas oo saameyn ku yeeshay baabuurta iyo guud ahaan qalabka elektarooniga ee shirkadaha iyo mishiinada waaweyn gudoomiyaha shirkadda Haas Petroleum ee magaalada Hargeysa Cabdirasaaq Ibraahim Maxamed oo maanta shir jaraa'id ku qabtay xafiiskooda ayaa faahfaahin ka bixiyay inay shidaalkaasi wax luga ku leeyihiin isagoo beeniyay warar ku soo baxay warbaahinta qaar oo sheegayay inay shirkadda Haas og tahay isagoo tilmaamay inay wararkaasi yihiin qaar aan sal iyo raatoona lahayn waxaanu tilmaamay inay shirkadda Haas Petroleum tahay shirkad shidaalkeeda lagu soo baaro wadamada caalamka oo ay baaraan shirkado caalami ah isla markaana ay sidato shahaado cadeynaya inuu shidaalkeedu yahay mid nadiif ah gudoomiyaha shirkadda Haas Petroleum waxa kale uu sheegay inay xukuumadda Somaliland ugu deeqeen mishiin lagu baari doono tayada shidaalka kaas oo sheegay inuu ku kici doono lacag ka badan $200,000 yalla sida dekedaha Mombasa sida dekeda Dar es Salaam sida maxaan ku sheegaa dibwoodka weyn ee wadamada landlord laga supply gareeyo ee Nakuru 300 milyan ummad ka badan ayay Haas u tahay supplierka ugu weyn ee xagga shidaalka ilaa jetka ilaa iyo dieselka ilaa petrolka ilaa iyo waxaan saliidahan kale ee gaadiidku ku shaqeeyo taas marka darteed annagu magaalada Shaariqa waxaan ku leenahay kaydka shidaal oo dhammaan wadamada looga raro shidaalka mana soo galo haamahaas oo ay maamusho dawladda Imaaraadka Carabtu ma soo galo hal litir oo aan ka imaanin kumbaniga weyn ee Imaaraadka ee la yaqaano oo haamaha isagu gacanta ku haya litir aan iyagu soo certificate ma soo galo haamaha shidaalka ee dekedaha Xamariya mana rarno mana soo dejino nasiib darro waxaan rabnay annaga dalkeena yarka inaanu marka aanu ka hirgelino nidaam qurux badan oo shidaal oo ah heer caalami dalkeena meelahan xeebaha shidaal ba ka soo gala lama baadho shidaalada kale yimaada laftigoodu sida ay ku yimaadaan waa la og yahay goolku taas oo aha markii marka shakigaasi batay waxaanu dawladda ugu deeqnay laboratory ku kacaya lacag ka badan $250,000 in aanu u keenno si loo controlo shidaalka dalka imaanay oo shidaal wanaagsan uu noqdo warqadii aanu dawladda u qornayna wata iyadoo original oo aanu madaxtooyada iyo wasaaradda ganacsiga iyo haamaha iyo hay'adda quality control ka aanu kala dirnay warqadda xaq hoose waxa kaga lifaaqan oo aanu ku codsanay inta taa la gaarayo laabka wadanka aanu dawladda u keenayno in ay maamulka haamaha iyo wasaaradda ganacsiga control ku sameeyaan shidaalka dalka soo galaya oo markab kasta oo kaayagu ka bilaabmo in la baaro oo inta test ama laga qaado maxaan ku sheegaa laga qaado shidaal in lagu soo baaro meel reliable oo la wada aaminsan yahay taasna wasaaraddu way fulisay dhammaan shirkadaha way ku soo rogtay sharciga waanu ku faraxsanahay waanu uga mahadnaqaynaa waxaanu ka midnahay shirkadaha ugu horeeyay ee loo diray Djibouti in lagu soo baaro shidaalkooda sida aanu ka codsanay wasaaradda ganacsiga khadar macalin deeq telefishinka caalamiga Somali Channel Hargeysa